maanta halkaan iskugu yimid ciidamada Soomaaliya isla socotaan hoogoodii saraakiishoodii dhallinyaradoodii waxay ku maqan yihiin difaaca waxay la dagaalamayaan khawaarijta soo saas lama socotaan aan hamar dhahno guulaysta 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 taas nalama celinay dagmana muxuuha mashquulinayso inaynu difaacano dalkeenna inaynu difaacano dhulkeenna inaynu difaacano dalaheenna inaynu difaacano ummadeenna soo sidaas ma aha haleeshalayaantaa wuxuu ahaa baddeennu beec ma aha saasoo ma aha yaysan ka hoos bixin marka hadday baddaasu baxdo Etoobiya iyo baddu imisay isu jiraan 400 cabdisabab waxay isu jirtaa 450 iyo wax intaasa la sheegay ilaa xuduudda laga galo oo weliba deegaanka Soomaalida la dhaafo ogaada haddii baddaas la bixiyo oo baddaas ay niyeysteen madax helayaane ay qaadan lahaayeen dhulka u dhexeeya meesha ay isleeyihiin waa ku ammaanaysan oo ku nool yihiin Etoobiyaanka ah ilaa iyo meeshani waa lagu siinayaa qof Soomaaliya kuma noolaanayo dadka Soomaalida waa laga ciribtiraya xoolo ku dhaqan mayaan beero ka faran mayaan yaan marka keliyaha arkina 20 kilomitir معنا ولبقول 300 400 كيلومتر تاس ما فهمنا تاس اللي فهمنا توقع قلوبكيو سوماليا اشتاي سوماليا ده كلمة دفاع علينا صفدنا دفاع علينا دول كلمة دفاع علينا شرفتنا دفاع علينا ولينا كلمة دفاع علينا عروتنا دفاع علينا دول الله يدسيو سوماليا هنا لا تو سوماليا هيسرعوا سوماليا هم يدلوا كل استشهاد